qodobka labaad ee rabayna hoosta ka xariiqa waxa weeye wax weyn baynu raadsanaynaa hadafkeennu iyo ujeeddadeennu aad bay u xeel dheer tahay waxaan ku tala jirnaa inaan ummaddan aayaheedii inaan xaqiijinaan ku tala jirnaa taa waxaan ku gaari karaynaa midnimo ayaynu ku gaari karaynaa midnimo ka bilaabata heer qowmiyad Soomaaliyeed taasaynu ku gaari karaynaa isbedelada dhacaya ee Itoobiya ka dhacaya waxay horseedeen in qowmiyad waliba ay danaheeda ku foofto in la waayo wixii Itoobiya la dhihi jiray Itoobiya waxa la yiraahdo wuxuu ahaa qowmiyado qasab la isugu keeno qori afkii la isugu hayo ahaa laakiin markii qasabkii iyo qoriga afkii meesha uu ka baxay cid waliba danaheeday ku fooftay qowmiyad waliba danteeday ku fooftay si ay qayb libaax uga qaadato jaangooyada siyaasadeed ee Itoobiya iyo mustaqbalka soo socda sidaa darteed innaguna ka Soomaali ahaan waa inaynu heer qowmiyadeed u fakirno si aynu qaybtaas maaragtay uga qayb qaadanno mid inoo cuntantaa uga qaadanno waa inaynu qowmiyad Soomaaliyeed dhisno qowmiyad Soomaaliyeed oo ku midaysan mabda' xalaala ku midaysan aaya ka talin in la raadiyo ku midaysan Soomaalinimo ku midaysan in ummaddan sharafteedii iyo cizigeedii la soo celiyo ku midaysan in dalkeeda la difaaco ku midaysan in diinteeda la difaaco ku midaysan luqadeeda iyo dhaqankeeda in la difaaco waa inaan midnimo noocaas inaan samayno waxa la yaaliyo wixii dhaawacaya ama ka hor imanayana waa inaynu il gooni ah ku eegno aynu la dagaalanno waxyaabo badan oo dhaawici kara jira midnimada qowmiyadda Soomaaliyeed dhaqan ahaan sida ay u samaysan tahay qowmiyadda Soomaaliyeed waxa farakul ku haya waxa la yiraahdo qabiilka Ilaahay wuxuu u jideeyay in la isku garto nasab ahaan hebel xaguu ka soo jeedaa nasab ahaan iyo xukunka shariicada islaamka in lagu kala garto ummadda yaa loo sameeyay waxa inta dhaafsan oo loo sameeyay malaha in hab siyaasadeed oo manhaj siyaasadeed inuu noqdo looma samaynin in la isku colaadiyo looma samaynin in la isku riixriixo looma samaynin inaad qof ku soo dhawaysato midna ku riixda looma samaynin waxaasoo dhan xaaraan wey waa dib u dhac wey waa in aan ka tashaqayno sidii aan qabiilka ugu isticmaali lahayn habka sharciga ah ee Ilaahay u jideeyay si aan ugu isticmaali lahayn inta kale ee Soomaalidu u isticmaalaysan inaan soo afjarno baabeeno waa inaan ka korno la nimaadno xadaarad ku salaysan anigu dal iyo dad iyo ummad baan leeyahay kuwaasaan dantooda ka shaqaynayaa kuwaasaan isu soo habaynayaa kuwaasaan maaragtay rabajid sax oo cad inaan u jeexo inaynu xadaarad nooca gaarsiisan inaynu gaadhno wey qof walba inaga midana kaalin baa kaga habboon inuu taa maaragtay ciyaaro kaalinta kaga habboon waa inuu ciyaaro wey waxgaradka ummadda culimada hooyooyinka cid walba xil baa ka saaran in aynu maaragtay ku fakirno hab qowmiyad Soomaaliyeed inaynu ku fakirno oo aynu abuurno qowmiyad Soomaaliyeed oo la tartami karta qowmiyadaha kale ee Itoobiya ku hardamaya kaas waa qodob weeyaan qodobka labaad waxa weeye isbeddello badan baa ka socda Itoobiya isbeddeladaasi saameyn bay nagu yeelanayaan si toos ay saameyn noogu yeelanayaan waxa weeye Itoobiya laba dhinac bay u fadhidaa labada dhinac ee u fadhida waxa weeye waa dhinac aaminsan in ummaduhu ay ayahooda ka tashadaan oo ay xaq u leeyihiin inay ayahooda ka tashadaan iyagu ismaamulaan ay yeeshaan nidaam dawladeed oo ay ku qanacsan yihiin oo ku salaysan danta ummaddaas iyo koox kale oo ka soo horjeedo oo lemaye waxaan u baahannahay Itoobiya mid oo qasab la isugu hayo oo hal dal ah hal diin leh hal ilaah leh hal luqad leh taasi waxa weeye waa mid aynu ka soo gudubnay dhowr iyo 30 sano ka hor wixii lagu dhaqi jiray way Itoobiya ee ay hayday dhigi jireen Itoobiya waa mid hal diin inay caabudo hal ilaah inay yeelato way hal luqad inay yeelato way waa mid keentay luqad aynaan aqooninba in maanta caruurteena wax loogu dhigayo oo macallin aan fahmayn ayna isfahmayninba uu wax u yiraahdo waxbaan idin sharxaya labadaas dhinac bay u kala fadhidaa inagu dabcan waxaan ku jirnaa hormuud ka nahay dhinaca aaminsan in ummaddu ay ayahooda ka tashadaan
وأي يشان نظام دولة ذو مصلحة ذو كسالة سنين يشان كاس الحوشينينا لكن هذا الدولة ده كجرت إثيوبيا وحي وضع وأي أمورتي حزبي ماشى كساري أحزابتي قوميدها إلى هايين ودن حزبي هالمدا وهالميل لوغا تليو وأدساو لوغا تليو هدي مركا حزبي نوعاس انتو سمايسمو وطلada dalka qabto waxa dib loogu noqonayaa 30 sano meeshii laga soo guuray ba dib loogu noqonayaa waxay noqonaysaa in qofka meeshan maamulaya ee gudoomiyaha gobolka doolo in laga soo magacaabo Addis Ababa qofkii la doonana in loo soo magacaabo ama xabashi ahaada ama oramaha ahaado ama cid dooni ha ahaadee inuu xisbigaasi ku saleeyo maslaxadiisa siyaasadeed inuu ku saleeyo laakiin una danaynin oo fiirinin maslaxadda ummadda gobolkan degan iyo maslaxadda qowmiyadda Soomaaliyeed inuu fiirin arrintaas waa arrin khatar ah wey arrintaas wada hadda Itoobiya haddii arrintaas ay hirgashaan xisbiga hadda talada haya ee SDP la dhaho xisbiga Soomaalida ee waddankan ka jiray waa la baabiinayaa wuxuu noqonayaa un xafiis ka tirsan xisbiga weyn ee Addis Ababa laga xukumo noqonayaa waxa la yaaliyo wixii salka uu ku hayay way la baabaaya maamulka yar ee jigjiga ka jiray markii hore aynu salugsanina uu la baabaaya arrimahaasi waa arrimo khatartooda la weey waa arrimo u baahan marka in shacabku ay u toog hayaan oo ay ogaadaan arrintaasi inay tahay arrin dantooda iyo maslaxadooda ka hor imanaysa arrin qowmiyadnimadii Soomaaliyeed iyo dalkii xadka lahaa ee la yaqaanay meesha ka saaraysa oo ka dhigaysa gobol Itoobiya ka tirsan oo waliba qolo kale intii lagu soo daro la dhaho gobolka bari la dhaho yaa dib loogu noqonaya marka arrimahaas arrimo khatar weey waa inaan taasna aan maartay u toog hayno oo aan innaga maslaxadeena iyo danteena aan ka talino weey qodobka ugu dambeeya aan jeclayna ku soo gabagabeeyo waxa weeye qofka muwaadinka ah waa inuu xuquuqdiisa si fiican u aqoonsado xuquuqda aan leenahay ka muwaadin ahaan ee aan ku leenahay dalkan iyo cidda maamulaysa waa inaan si fiican u ogaano wey haddii aynaan taa ogaanin oo cabsidii jirtay iyo cagajuglayntii iyo dhibkii iyo rafaadkii aynu madaxa laalaadsanno waa laynagu dul soconi waa inaan ogaano marka maamulka halkan ka jira innagu inoo shaqaynaya maamulka halkan ka jira wuxuu adeega u yahay bulshada deegaankan ku dhaqan buu adeega u yahay inuu ka adeegta maaha waa inuu iyaga u khidmeeyo waa inuu ku shaqeeyo siyaasad iyagu ay ku qanacsan yihiin waa inuu maslaxadooda u ilaaliyo iyo dantooda u ilaaliyo shacabkuna waa inuu ku ilaaliyo wey haddii uu nidaam fiican iyo sharci iyo nidaamkii danta u ahaa dadka hadduu ku socdo waa in lagu taageero hadduu ku socon waayana waa in maya la yidhaahdo waa in no la yidhaahdo wey la isma xirayo la ismana dilayo la isumana cagajuglayn karo qofku mabda uu rabo adeegsan karaa ururkuu rabo ka tirsanaan karaa cidduu rabo aamini karaa laguma cadaadin karo laguma ciqaabi karo fikirkiisa iyo mabdigiisa iyo ra'yigiisa laguma ciqaabi karo waa laga soo gudbay waa wax Itoobiya oo dhan ay ka gudubtay ma aha marka mid innaga inay nagu sii harsanaato ma aha waa inaan marka inagu geesinimo shacabku waa inuu geesinimo lama yimaado wey waa inuu ogaado dawladda isagu inuu xukumo oo ayna dawladdu xukumin dawladdu waxay ku xukuntaa oo keliya sharciga iyo nidaamka iyo intay raacaysa xukuntaa bas laakiin hadday taa ka leexato waxa weeye shacabka u taliya waa in qofka ka leexda laga qaado meesha la dhaafiyo xaq baana dawladdiina tiraadaan kali maslaxadana kama shaqeynayana la dhaafiyo xaq buu shacabku leeyahay laakiin waxa ka horeysa inuu xaqiisa garanaya ka horeysa qofku inuu xaqiisa garanaya ka horeysa maartay amnigaaga noloshaada hantidaada dalkaaga iyo deegaankaaga waxa aad xaq ugu leedahay dawladda waxyaabahaas oo dhan waa inaad garanayso wey kabacdina inaad dabada haysato wey oo aad cid walba kula doodo weeyaan marka insha Allah waxa weeye annagu ka urur ahaan intii hadda ka horeysay waxaa lagu jiray isdiyaarin baa lagu jiray laakiin hadda wixii ka dambeeya si dhaba loo gudageli doonaa sidii looga qayb qaadan lahaa jaangooyada siyaasadeed ee ka socota waddanka sidii gacanta loogu dhigi lahaa talada dalka si loo dhiso loo sameeyo dawlad
danta ummadda ka shaqaysa dawlad horumarisa ummaddan iyo dhaqankeeda iyo diinteeda iyo maslaxadeeda iyo danteeda horumarisa oo danta maaragtay gaarka ka horreysiisa danta ummadda ee guud si taa loo sameeyo waxaa weeye waxaa qasaba in talada dalka la qabtaa qasaba taas baana hadda maaragtay isu taagnay insha allahna waanu ku dhigi doonaa gacanta si aanu ummadannada ugu khidmayno ugu adeegno idinkuna shalay haddii aad maaragtay dhiig u shubayseen oo laydiin dilayey oo laydiin xidhayey oo laydiin rafaadinayey waxaa weeye maantana halkii unbaa ka socotaa mabdii isaga ahaa weli waan wadnaa marka taageeradiinnii iyo garab istaaggiinnii iyo dhiiranaantiinnii iyo dhabar adeeggiinnii weli waa loo baahan yahay annaga waxaad nagu ogaataan in aanu hadafkii aanaan ka leexanin oo aanu helinka toosan ummadda ku hagno idinkana waxaanu idinka fadhinaa in sidii shalay aad u halgamayseen ee aad halganka u taageerayseen aad u taageertaan haddii labadaa la isla helo waynu gaadhaynaa haddii labadaa la isla helo danteenna waynu gaadhaynaa meel allaale meesha ay gashana waanu gelaynaa cid aan uga waabanaynana ma jirto cid aan ku xurmaynaynana ma jirto ama Soomaali ha ahaado ama cid kale ha ahaatee